السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال عصب أين كمان برام سما فله فالله هذين وعصب تنوصل بير كان لك سبسكرايب من الصار فيديو كان إلاو أن بيج كفرو قريصة فيديو كان لايك صار أنا إلاو فيديو أن شير هذا وأكون بس انتهي داوش هذا الفيديو كان هل كان واحد كوسو قبنا تلابين لو لسه كارك كل سنة نفتا تطبق قضب أي حكم كوس شيء دونا هذا لقيسه هبون qodobka koowaad wuxuu yahay xakamay oo xadid gacantana ku hay naftaada ha noqon qofkood adag dadka kale naftaada oo mid u naxariis badan oo jecel qor oo tax waxyaabo aad ugu wanaagsantahay oo aad leedahay ama se tayo shakhsiyeed oo aad leedahay deetana aamin oo ku qanac labo ha noqon mid cabasho badan qof kasta waxa uu ku dhex jira dhibaatooyin ha yaraadaan ama se ha badnaadaan qaar ayaa ka dhibaato badan haddana ka adkaysi badan oo ka calacal yar inaad noqoto qof si taban wax u arka waxay ka dhigaysaa mid ka takooran dadka kale ee ku xeeran taas oo fursad siinaysa inuu kugu dhaco isku buuq maadaama aad ka go'day dadkii kugu xeernaa noqo mid isdejiyo oo isweydiiya su'aalo badan oo xal u raadin karo jaana si naftaada ay ku nasato si ay maskaxda kugu degto saddex hormari oo dhis niyadaada naftaada u ogolo inay la tacaasho carqaladaha kugu soo wajahan waqtina si aqri waxyaabo ku dhiirigelinaya oo dhisay niyadaada afar tag oo ka qayb gal xafladaha caweyska ay dhalinyo iskugu yimaado inaad ka qayb gasho xaflad ama seminar waxay kugu caawinaysaa inaad hesho dad aad isku fikir tihiin oo si wax kula arkaya nolosha kula jaan qaadi kara waxa kale oo u kacaya kalsoonida naftaada oo wax badan oo ka dhina ayaa kaaga soo kordhay halkaas shan umahadnaq ilaahay subhanahu wa ta'ala ku abuuray inaad ilaahay umahadnaqdo hawl kasta iyo mar kasta waxay ka caawinaysaa inay hawlaada ku kala fududaan oo aad dareento ganaanshiyo maskaxdeed iyo qalbiyeed taas oo qayb lixad ka qaadanaysa kalsoonida naftaada lix u kaxsha aad niyadda ku qabato hawl kasta oo niyadda lagu qabto kama soo haro ficilka ogow hadaad wax walba niyeysato oo aad riyoto inay ku jiri doonto ay ahaanayso riyadaas laad ku cayso toddoba ka dheero caajisku sida ayna wada ognahay waxa uu qofka ka lumiyaa waqti badan waxaana uu hoos u dhigaa firfircoonida iyo fikirka qofka in aad ka fogaato oo aad la tacaasho caajiska waxay ku sahlaysaa in aad kalsoonida naftaada kor u qaadi karto